waayahay daawadayaal imakana waxaa barbarkayga midig fadhida Yoonis Ismaaciil hooyadii maama Kaltuun maama waan kusoo dhaweynaynaa marka hore anagoo ah hablaha aragga naafada ka ah taqbalan garan maama adiga codka kor u qaadaya waxaad si guud iyo si gaar ahayd baa nooga warantaa xaaladda Yoonis xanuunkan markii hore miyuu ku dhashay aragga iyo maxay ahayd cagaha ma isku mar buu waayay bal xaaladiisa si fiican meel waa 3 sano buu laakiin ku dhashay sida kale cagaha uu ku dhashay meel ku lana casan tabaqeen buu cagaha markuu soo horeysay jiibay haye waxa xagan dhabarka ay wax ka noqday haye si halkan dhooxay muxuu xagule wax ka noqday haye aragtida isaga goormuu waay aragtida 3 sano buu arag laay marka dhaqaatiir ma la xiriidho ma xanuun iyo wax ku sababeeyay waxay leeyahay xaalada ma qaban karo waxa ka maskaxda ay ka tilmaamahay xaga neerfaha asi ka tii imaka aragtidiisu ma dambe am soo wax yar marka dhaqaaqa ayaan arkayaa waxa loo socodka maaga banakaya xamdo dhakhtarkan man halo kala ma la xiriidho wangi aye magax wala ma qaban karo shiina doctor shiina aye Yoonis markaynu ka nimaadno xaaladiisa xanuunka la soo darsay xanuuno kale u dheer ma leeyahay neerfahan deegaanka dawada mooyaan intaan nabad mooyo xaram neerfaha xanuunaya kiniino qaata marka kiniino qaata kiniino warqada intaan si gariisa u gariida haduu waayo dawada waayo aye neerfaha iyaga dhakhtar ma ula xidhiidha dhakhtarka dawla xidhiidha marka dawada hadii laga joojiyo wuxuu sameeyaa gari aan iska loogi marka dawada mooyaan wax isbedel kala ma laha dawada ma isbedel ma sidoo kale wuxuu Yoonis ii sheegay markii dhaweyd adigana imika hadalkaaga ka dhadhansaday inay jiraan nabaro jirka ka soo baxay nabaro ku yaalay inta ka yaalay runta haye aan dawada tusoo karaawate insha Allah nabaradaas marka ay waa joogto mar walba way soo baxayaan may waa nabar caalasha laba nabar marka ku raageen marka hadii nabar ku jirkiisu bilaabo waa bogso waa jirka baqtay moogti waa jirka ay hore bogsanahay marka way weynaadeen nabarada marka dawada ku soo waxba ma tarto daaninka waayahay dhinaca waxbarashada hadeen ka nimaadno xanuunka Yoonis heer inta leeg waxbarashada ka gaadhay quraanka mooy lixda jismi wax kala muuligan marka lixda jis wuxuu dhigtay intaanu arag beelin ka hor intaa uu dhahaa 3 bilood oo ku dhigtay lixda jis madrasadu tagi jiray madrasada gaarigiisu haysan jiray waxa jira iskuulo ay leeyihiin dadka aragga naafada ka ah iskuuladaas oo kale ma isku dayday inaad mar baabuurka u saarto oo aad geyso markii hore indhaa qabay ayaa soo jiray gee haye laakiin markuu waxba ka in iska dayo kurugu ma iska jiro ma iskuuladaasna waad geyn doontaa waqtigii aragga qabay uma baahnayn laakiin hadda u baahan yahay farta wuu dhigan karaa quraanka wuu baran karaa dadka aragga naafada ka ah quraanka way dhigtaan way dhameeyeen imika aniga ayaan kula hadlaya 30 jis waan dhameeyay anoo arkay kitaabka marka insha Allah dhiirigeliyaha koowaad adaa Yoonis u noqon doona xagga waxbarashada inta dunida qof nin fakriya leh ayaa dunida maamuli kara muhiimadu waa caqliga qofku haddii caqligiisa taam u yahay waxba kama qaldana marka insha Allah Yoonis adiga maxay hay'ad dhiirigeliyo u noqon doona iskuulkaasna waad geyn doontaa muuqaalkan imika la duubayo waxaa daawan doona walaalaha islaamka ah gaar ahaan walaalaha Soomaalida ah marka xaaladda Yoonis maxaad jeclaan lahayd in lagala qayb qaato waxa uu taran xafaayadaha iyo dawada neerfaha xafaayadaha wuxuu Yoonis aye iyo dawada neerfaha marnaba dhaqaatiirtan dalku ma kaaga rajo muujiyeen in dalka dibadiisa wax laga qaban karo dhaqaatiir badan ma kusoo haye marka waxaad codsanaysaa in xaaladda Yoonis lagala soo qayb qaato dhinaca kiniinada hadday noqoto qalabkan kale lagu nadiifinayo xafaayadaha iyo waxyaabahaas dhakhtarka ku dhigiisa hadii lagaaga rajo muujiyo dhakhtar dibadeed ma jeclaan lahayd in Yoonis xaaladiisa la tacaasho ma jeclaan lahayd insha Allah walaalaha muslimiinta ah ee muuqaalkan daawanaya insha Allah iyo gaar ahaan walaalaha Soomaalida ahba waxaan rajeynayaa Yoonis Ismaaciil iyo maama Kaltuun in wixii karankooda kala soo qayb qaataan waayo ifka lagu yahay walaalo ifka wax la isugu taraa
aakhiro waxba la isugu tari maayo 4 cisho adduunku weeyaan 4 cisho in walaalaheena tabaaleysan ay barbar istaagno inagu haddii marka aynu cagaheennii qabno qaarkeena maxay hadiidhahoodii qabaan waxay jira walaalay naga sii daran oo magaranaysaa lixaadkoodii kala dhintaaran yahay siiba ahaan baahi kale usii dheer tahayo sida imanka maamo kaltuun inooga dhawaajiso kale aanay haysan yoonis aanu haysan kiniinadii uu cuni lahaayeen neerfaha iyo xafaayadihii loo xidhi lahaa marka dhammaan walaalaha islaamka qof kasta oo maxay hayday hawshaasi nagala qayb qaadan kara waxaan jeclaan lahayn inay nagala soo qayb qaataan annagoo ah hablaha aragga naafada ka ah kuna midaysan ururka Tough Blind Girls waxaan mar walba u taagannahay sidii dadkaasi aan hiil iyo hooba u barbar istaagi lahayn dadka jilicsan ee naafada ah siibahan dadka aragga naafada ka ah ay u sii dheer yihiin baahiyaha kale marka insha Allah waxaan jeclaan lahaa dawlad shicib iyo xisbiyada mucaaradka intaba inaan hawsha la nagu cidlayn oo la nagu garab istaago insha Allah